madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay warbaahinta ka soo muuqday isagoo xariga ka jaraya xarun xisbigiisu ay ka furteen magaalada Muqdisho. madaxweynuhu wuxuu weerar xooggan ku qaaday madaxda fila Soomaaliya isagoo ku eedeeyay tacadiyo iyo caburin iyo xadgudubyo ay ku hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba. maanta waxaa soo ifbaxaya raadadka biseelyarida naga haysata dhanka wada shaqaynta lakabyada kala duwan ee haykalka dawladnimada. haddii labadii aqal ee sharci dejinta ay leeyihiin sidaan kuma wada shaqayn karno. haddii dawladihii xubinta ka ahaa dawladda federaalka ay leeyihiin sidaan kulama shaqayn karno dawladda dhexe. haddii xisbiyada qaarkood ay ka cabanayaan in la caburinayo lana baalmarayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal. uma habboona in habdhaqanka siyaasadda iyo sida ay wax u socdaan wax laga bedelo maanta. waxaa intaas dheer walaalayaal dareenka maanta dadkeenna ee gaar ahaan inta danyarta ah inaan ayadana meesha uu ku sugan yahay wax isaga sheegno walaalayaal. fariintan uu diriyay madaxweynihii hore waxa ay u muuqataa in siyaasadda Soomaaliya uu dib ugu soo laabtay oo uu rajo ka leeyahay inuu mar labaad u tartamo madaxweynimo ama uu ku sii dhex jiro siyaasadda oo uu meelna ka aadin. laakiin Xasan Sheekh Maxamuud laftiisa wuxuu ku eedeeyay yahay inuu intuu jihayay xilka ku kacay caburin saxaafadeed mutaadiyo kula kacay shacab Soomaaliyeed iyo weeraro uu geystay iyo hadallo deelqaaf uu kula kacay dad halgamayaal. haddii Xasan Sheekh Maxamuud uu rajo ka leeyahay inuu siyaasadda Soomaaliya mar kale ka soo dhex muuqdo waxaan kula talin lahaa inuu u tago oo uu la kulmo oo uu magdhow siiyo gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Daaci oo weeraray dad badan ay ciidamadiisu ay ku dileen degmada Wadajir. marka la fiiriyo runtii Axmed Daaci waa qof daacad oo saciima waa ragga farakutiriska ah ee afkoodu waxa ka soo baxay waxa uurkooda ku jira isleeyihiin. sidaa darteed Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kula talin lahaa inuu degmada Wadajir tago wixii uu halka ay ka geysteen isaga kooxdiisana uu raaligelin iyo magdhow ka bixiyo Axmed Daacina uu la kulmo oo uusan isma taqaanaa iska dhiga tirin ama iska dabaalin maadaama dhacdadaasi ay ahayd dhacdo taariikhiya oo dad badan wali xanuunkaasi uu laabtooda ka guuxayo. sidoo kale Xasan waxaan kula talinayaa wiilashii Abshir Baakaati oo kamid ahaa ee Daawud ee uu xiray xilligaasi wali xabsiga xaqdarrada uu xiran inuu soo deyntooda gacan ka geysto ka shaqeeyo sidii loo soo deyn lahaa. وهذا ورا محوكم أنا حبضاء يبص عطوا وأنا أقول في فرالي بوجهه سوى. قدامي محيط لك ورك معك كل ما مش ورك. حتى ورك ظلمية. يا كو أذن سا قلا حق جينا إنك صورتي. صور أنا إذا ما دي الدولة دانا ورا وحنا. أديك الدولة ده محكيني إن الدولة ده صورت أنا داعي. ما عمبارين سعر انت نورك قدامي يا احمد داعي ما عمبارين سعر ورك ما عمبارين سعر هذا روح لك امام مغلوح بدنا نقص قتل لكن تقارنا نقوها اياه وانا انه استفاعول اديك مسؤول دوله تاع محل لو سو ورا اسلا داي ما انا حبدا hadii lagu bilaabo miya waxa lagu weeraraa ma waa ka baxdin la soo warto wixii lagu weeraraa laakiin weerarka mu aragtaa inuu yahay weerar argagixisaa weerar gardarraa waayo dadka ummadda lagu dhibaataynayo ayaan taana guriga xildhibaanada siyaasiyiinta lagu weeraraa. laakiin gudoomiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kula talin lahaa in uu si intuu kaliya adeeg yeesho uu raaligelin ka bixiyo kelmadii uu jijiyay ka yiri ee gobonimo doonka Soomaaliyeed ONLF maxaabiistii ka xireed oo boo ugu yeeray. haddii ay arrinta ku aragtaan waxaan kula talin lahaa inuu madaxda ONLF ama jabhadda gobonimo doonka Soomaaliyeed ay jooxo u diro fariin uu leeyahay qaladkaasi maalinta iga dhacay waa idinka raaligelinayaa. haddii uu iyaga si gaar ah ugu dirana madaxdii iyo saraakiishii ONLF ayaa raali ka noqonay. haddii si guud meediyaha ugu raaligelin u bixiyana shacabkii oo dhan baa caleemo qoyan mataqaan ku soo dhaweynayo oo taas waxay la tahay inay isaga wax weyn u tiri doonto. wiilasha shalay nala soo tusay ee dhowrka sano duurka ku jiray ee ayagoo raameystay oo maxaankooda injirtu ku baxday ee intaasoo nolol xumaa ay u sii dheertahay dambiga ay galayaan iyo walaalkooda ay dilayaan iyo maanta siday u nool yihiin nolol qurxoon nadiif ah cibaadadeeda wadata mustaqbal leh
hantiilayaal yay noqdeenba maanta oo waxaba sanadka aakhirkiisa waa xisaabtamayaan maxaa faa'iido isoo gaaroba ka hadlayaan waa hadda ninkii shalay muxuu ahay duurka muxuu ahay nolosha adag ee qaabka daran ee muxuu ahay saas ku jiray maanta ninka ku xisaabtamayo sanadka aakhirkiisa maxaa ii soo haray markii qarashkii la iga jaray shaqadii aan qabtay ee intaana mishaar qaadanaya ee qoyskiisa iyo reerkiisa biil siisanaya asoo mishaar qaadanaya haddana sanadka aakhirkiisa dhahayo maxaa ii soo harayo muxuu ahay looga shaqeey inta hanti lama u imaan hanti kale ma ay soo noqon muxuu ahay markii ay ka imaanayeen uba markii ka imaanayeen hanti lama ay imaan ya number 3 xashiq maxamuud waxaan kula talin lahaa in uu u tago cabdi nuur siyaad oo loo yaqaan cabdiwaal uuna ka raali geliyo afduubkii laga soo afduubay Kenya oo baasaboorkiisii Kenyaanka ilaa hadda uu ka maqan yahay number 4 xashiq maxamuud haddii uu rajo siyaasadeed leeyahay waxaan kula talin lahaa inuu u tago milkiilaha idaacadda Shabeelle gurigii uu deganaana uu ka saaray Cabdiraxmaan Tuuryare isaga iyo wariyaashii muddada dheer ku cadaabnaa xabsiga dhexan oo raali gelin buuxda iyo magdhow siiyo xaqiiqada warankeeda hadduu wariyuhu tilmaamo xogtiisiyo waajibkiisa wargeysyada hadduu ku faafiyo adigu agar hawga qadan wadkii dhibashada hamoodin haweerarin aragtidiisa xorriyatul qolkana magacaygu waa Axmed Cabdi Xasan waxaan ka mid ahaa wariyaashii Shabeelle ee dawladda Soomaaliya ee xirtay waxaan hadda joogaa qaaradda Yurub waxaan si kooban kaga sheekeynayaa xarigii liigu geystay magaalada Muqdisho iyo sidii liigu jirdiray xaqiiqada warankeeda intii aan la xirin ka hor number 5 xashiq maxamuud waxaan kula talin lahaa in uu intuu geesinimo iska raadiyo soo fariisto ee warbaahinta in uu raali gelin buuxda ka bixiyo 6 maalmood oo u xireed wadada Muqdisho iyadoo igad ay ku shireen magaalada Muqdisho taas oo ay tacaddigii ugu weynaa ee shacabka Muqdisho ay kala kulmeen xilligii talada u hayay shacabku ma mudna in wadooyinka laga xirto shacabkuna ma mudna in aan raali gelin la siinin oo dhibkii loo geystay aan looga tacsiyay xashiq maxamuud waxaan ka codsanayaa haddii aan qalad ka galay inuu iga cafiyo waxaan si gaara anigana aan uga raali gelinayaa taraxtag haddii uu iga dhacay iyo haddii aan soo hadal qaaday ama aan ka hadlay arrin ku saabsan aabihii oo geeriyooday waxaan leeyahay taasi ilaahayna iga cafiyo haddii aan qalad ku geystay isaga iyo ehelkiisuna waxaan leeyahay waxaan ka codsanayaa cafis sababtoo ah cafisku waa wax ugu wanaagsan ee qof muslim ah oo qof kale walaalkiisa weydiisto dahal calis wuxuu leeyahay dabaysha geeda umar ruuxdana ciyaarsiiso waxaan ka rajaynayaa madaxweyne xashiq maxamuud in uu garwaaqsado qaladkii ka dhacay sidaan u garwaaqsaday mahadsanidin وسبحانه له وارك كليه سنه ورارك كدهنا وغوا وغا عسو